degdeg dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya balse u kirisneyd dowladda Imaaraadka Carabta taasoo qorshaha ay ahayd in ay timaado magaalada Muqdisho kana daabusho sanad ciidan iyo qalab military oo Imaaraadku ka yaalay gudaha magaalada Muqdisho ila waraydo ka tirsan waaxda socdaalka ayaa inoo xaqiijiyay in talaabadan ay qaad dowladda federaalka Soomaaliya si loo xaqiijiyo badqabka hawada iyo in si guud la fuliyo amarka dowladda ee la xiriira in Imaaraad uusan howlo military u isticmaali karin hawada dalkan Soomaaliya iyo si guudba garoomada ku yaala gudaha dalkan Soomaaliya talaabadan ayaa muujinaysa xiisad si kordhaysa ee markan u dhaxaysa Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaana madaxweyne Xasan iyo dowladdiisu ay qaadayaan talaabo kasta oo lagu ilaalinayo midnimada madaxbannaanida iyo qarnimada Soomaaliya sida madaxda hay'adda socdaalka ay noo xaqiijiyeen diyaaradan ayaa la sheegay sidoo kale in ay qorshaheedu ahayd in ciidamo Imaaraat ah oo tababar ka waday gudaha dalka gaar ahaan Muqdisho ay ka qaadaan caasimadda hase yeeshee waxaa la diiday dowladda federaalka Soomaaliya waxaana si cad loogu sheegay inay kala wareegto oo ay ka laabato hawada dalkan Soomaaliya waa talaabadii ugu horeysay oo dowladdu iga hortagayso qorshaha Imaaraadku ay qaaday hawadana ka celisay markii ugu horeysay diyaarad Imaaraadku ay wadatay oo qorshaheedu uu ahaa daabulida ciidamada qalab military oo ka yaala gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale xogaha ayaa waxay muujinayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu ay si cad u muujinayaan kacdoon siyaasadeed iyo inay ka soo horjeedaan qaadista talaabooyin military ee dhanka Imaaraadka Carabta oo iyagu wiiqaya midnimada iyo sidoo kale wadajirka ummadda Soomaaliyeed dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo wasiir dowladda arrimaha dibadda Cali Balcad ayaa isagoo hore u sheegay in Imaaraadku ay hore u isticmaaleen hawada Soomaaliya ayna soo marisay hogaamiyihii koonfurta Yemen Idris Al-Zubaydi iyadoo aan lagu wargelin hay'adaha dowladnimada oo dhan sida kuwa ammaanka kuwa duulista iyo si guudba hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya talaabadan maanta ay qaad dowladda ayaan la xiriirtaa ka hortagga wax walba oo dhagar Imaaraadku dimacsan yahay iyo in ay halkan ka qaataan qalab military oo suuragal ay tahay in gobolada ama si guudba dowladaha dariska ah Soomaaliya lagu lageeyo gaar ahaan Suudaan oo hadda koox Imaaraad taageero ay ka dagaalamayaan wasiir dowlaha Cali Balcad ayaa sidoo kale sheegay in taasi aysan ku jirin heshiisyadii ay hore ula galeen Imaaraadka ayna u arkeen xadgudub loo geysay madaxbannaanida dalka iyo sidoo kale kaliftayna soo dejinta qaadashada go'aanka ay kaga jawaabeen ficiladii guracnaa ee Imaaraadku hore u qaaday waxa hadda si rasmi ah u shacbaxay banaankan u soo baxaya dagaalka siyaasadeed ee Imaaraadka iyo dowladda waxaana Imaaraad ay markan u muuqataa in ay weeqantay awoodooda Soomaaliya iyagoo raadinaya qorshe istiraatiijiyadeed oo ay ku doonayaan la sii macaamilka dowladda federaalka hase yeeshee madaxda qaranka ayaa taasi diiday dowlado dariska Soomaaliya iyo kuwa kale oo Carbeed ayaa isku dayay dhaxalintii Imaaraadka iyo dowladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee madaxweyne Xasan ayaa ka biyad diiday la hadalka la fariisiga iyo macaamilka Imaaraadka Carabta maadaama ay dhibaatooyin weyn u geysteen qarannimada Soomaaliya diyaaradda hawada laga celiyay ayaa madaxda qaranka ilaa hadda san ka hadlin balse waxay u muuqataa inuu yahay ficilkii ugu weynaa ee lagu badinayo qarannimada Soomaaliya loogana hortagayo in Imaaraad mar kale maleeshiyad Yemeni ah uu soo mariyo Soomaaliya si uu markaas u tuso in weli ay awood u leeyihiin isticmaalka hawada iyo garoomada dalkan Soomaaliya la socda Himila TV wixii warar iyo xoog ku soo kordha xaaladda iyo sidoo kale dagaalka siyaasadeed ee Imaaraadka iyo dowladda federaalka tan iyo kulan dambe nabadgelyo